xajka sheeko ku saabsan oo cajiibaan idiin hayaa. fadlan waxaa samaysaan barnaamijkan dadka xujayda haddaad taqaano qaraabada asxaabta u sheergareeya si ay macnaha ula socdaan waxa meesha laga baqayo oo sacuudigu ay ka digayaan si caafimaadkooda iyo noloshoodu aanay khatar u gelin. haddaba marka arrintan xajka ayaan markan u gudbaynaa. waaya marka waxaa la leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka bilaabaynaa goormee bisha carafo bilaabanaysaa. waxaan ognahay bisha carafo 9keeda markii la gaaro inay yowmul carafa tahay oo maaragtay carafadii la istaagayo oo maalinkii xajka u yahay. maalinka ku xiga 10aad waa maalinkan annagu ciidayno. haddaba marka ma la hayaa weli bishii mise weli lama hayo? taasaa rabaa in la ogaado. haddaba saakay telefishinka sacuudiga uu leeyahay la yidhahdo alcarabiya ayaa warbixintan daabacay. wuxuu leeyahay maxkamadda sare ee sacuudi arabiya ayaa waxay sheegtay in la baadi goobayo bisha dilxija galabnimada talaadada ah. waa maanta maqribka markii la gaaro sacuudiga maxkamaddu waxay tiri bisha ha la raadiyo. marka waa la heli karaa ama waa la weyn karaa soo maha. haddii la helana waa okay, haddii la waayana habeen dambe shaki kuma jiro arbacada inay bilanayso bisha. haddii caawa la arkana bisha waa saas. marka hay-adihii iyo qolooyinkii iyo wixii ka shaqaynayay iyo dadkii kulli waxay maxkamaddu amartay bisha waa la raadin karaa. marka hore waa inay maxkamaddu ku amartaa ay tiraahdaa caawa bisha ha la raadiyo inay tiraahdaa. hadhow markii bisha lasoo helo ugu dambayso dadka la dhaariyana bishu inay maxkamaddu ku dhawaaqdo tiraahdo berito waxaa bilaabanaysaa bishii carafo ama dulxija ayaa bilaabanaysa la yidhaahdo. marka halkaas marka waxaanu ka ogaanay bisha carafo inaanay weli dhalan laakiin caawa la raadinay. marka xujayduna sidaa hawla socdeen. dadka kale annaga aan ka mid nahay oo aan xajka ilaahay nasiibka u noo siinin inaan tagno sanadkanna in markaa iyaguna ay la socdaan. haddaba markaa arrin digniina oo weyna marka jirta oo aan rabo anigana barnaamijkayga inaan idinkugu soo wadaago oo markaa dadka xujayda ah aad la wadaagtaan. maxaa la leeyahay sacuudiga kulaylku wuxuu gaarayaa 50 darajo. 50 uu tagayaa. 50 dee naftaa kaa baxaysaba bannaanka haddaa u socdo. weliba xilliyada cibaadada oo dhagax tuurka la aadayo lasoo noqonayo. sacuudiga marku maxay ku digayaan? waxay leeyihiin dadku waa inay biyo badan qaataan xilliga oo xajka iyo arrimihiisa laguda galayo. waa in dallado la qaata, dallado fiican oo maaragtay qoraxda ku dhicideeda maskaxda kaa ilaalinayo. marka waa khatar. dadka marka xujayda fadlan fariintan gaarsiiye oo macnaha ha ogaadeen fariintan oo macnaha qof walba ha kusii talagalo biyo badan inuu cabo qaato, dallad fiican samaysto si uu qoraxda uga nabad galo. haddaba marka aan idin tuso warbixinta isla telefishinka carabiya oo sacuudigu leeyahay ayaa lagu daabacay saakay. waxaa leeyahay axadda soo socota waxaa bilaaban doona xilligii ugu adkaa kulaylka xilli sanadeedkan xagaaga. waxaa la leeyahay wuxuu gaari doonaa 50 ayuu gaari doonaa mamlaka sacuudiya ama fi sacuudiya. 50 ayuu kulaylka tegi doonaa. axadda soo socotuu bilaabana inuu meeshaa sii joogaa laga yaabaa maalmaha xajka uu markaa soo laalaabto kulaylku marka waa halis. marka waa fahmnaa u malaynaa. fadlan barnaamijka sheergareeya si in badan ay ugu helaan oo faa'iidaysta. haddaadan xataa aqoonin dad maaragtay xaj ka jooga si ay u arkaan eheladooda ama iyagaba ku sheergareeya facebooka iyo youtubeka waxa dhan dadka u kala dira.